وأن السلام يا دمان خيار تقييمي بدن قصة عن كحران أنيقو عبد الرحمن بعردي وحن يدين سو قدبنا قيبتي أفراد الشيكادة إن امتحانها أهيد سعودالكي جيريد الصومالي إلى يوروب وحينو تشوك حلقة الصدحات يدو تهريبياشي يوليو مهربينتي وذيبة أي قالين قعنت جبهة معارض كاه يلقوا مقعب العدل والمساواة بابورتي سودان تنلقب صدي هضبا سودان تمحاكو دعاي جبهة وحي مركي بهوش ورئيسك كبلابين كوحدي سودان تأهيد waxaa lagu yiri yaa madax ka ah kooxdan ninkii zamaani ah ayaa yiri waa aniga ninkii jabhada watay ayaa ku yiri waan ogahay in dadka masaakiinta ah 16 cishaad meeshan dhow ku hayseen oo ku rafaadiseen mid ay u wareysan magacyadooda iyo qabiilooyinkooda waxaa soo baxay in ay cadaatay in reerka madaxweynaha Umar al-Bashiri uu yahay kaas dhinac ayaa loola baxay markiina garaac ayaa lagu bilaabay waxaa lagu yiri adigu martiqaad gaar ah ayaad leedahay waxaan u qaadan inay badhici karto inay ama dilaan ama xirtaan kuwii kalena meel ayaa lagu urushay annagu meesha ayaanu tubanahay cidina waxnama yeelin maxaa tihiin aniga la hadlay Soomaali tahriibayso masaakiin ayaanu nahay kooxdii Eritreanka ahayd ee meesha uu ku daashay gaarigu waa la soo qaaday oo dhinacayaga ayaa la soo tubay gawaarida ku fasaxa waataan idin sheegay inaanu 16 cisho waxba naga degin aan ka ahayn 4 xabo busra iyo kabasho biyaha maalinta oo dhan jabhadii waxayna yiraahdeen gawaarida fuula dad yahow oo wax walba waad ka cuni kartaan ama ka cabi kartaan xor ayaad u tihiin ee cuna iyaga laftoodu waxay wateen buskud ay xoogaa noo daadiyeen nimankii muharibiinta ee cadawga ah Ilaah waa nooga aaray gacan ka xog badan ayaa heshay nimankii dhibaatada nagu hayay baabuurtii ayaa lagu yaacay nin biyo hela nin cunto hela nin gasacad qaraacda nin xabad kibis oo qallalan meel ka hela rag iyo dumar qof walba wixii ku soo hagaaga ayuu cunay kuwiina iyagoo dulaysan ayayna daawanayaan annagoo baabuurtii fagarayna kuwa Suudaanta ah 16 maalmood raashinka ay kaligood cunayeen ayaanu hadda hortooda Ilaahay amarkiis ku cunaynaa Ilaahow adiga qaadira waxaan la yaabay dadka Soomaaliyeed qaar ayaa ka dhowrsaday nimanka xoogga lagu haysto waxooda inay boobaan sida darteed dadka ku yaaca kama ay qayb galin xoogaa biyo ah oo jabhadu wadatay ayaana la siiyay markii uu horeysaba dadka nafti ayaa ku soo noqotay kooxdan jabhada waxa hogaaminay nin daadiisa aan siri waa dhowr iyo 30 jir aadna uma dheer hamana gaabna waa nin dhuuban cimaamad shaal yar ah ayuu duub ahaan u xiran yahay gar yar oo dhuuban ayuu leeyahay surwaal dheer iyo shaati aad muddo kuwa Bakistaanta oo kale oo sii deysan ayuu gashan yahay buug iyo qalin ayuu gacanta ku sitaa ragga la socda isku wada labis maaha qaar ayaa dharka askarta labisan qaarna cimaamad weyn oo cad oo tan Suudaanta oo kale ay xiran yihiin qaar marada sariirta la gogolaayay hoos kunti u haystaan qaarba wuxuu doona ay sitaan wuxuu amray gaari iyo 2 askari iyo 2 Soomaali ah inay bixaan oo biyo soo dhaamiyaan inta kalena annagoo baabuurtii faganayna oo buskud iyo cunto wax dhandhaminay ayaa meesheedii la tumay dhinac waa Soomaalidii dhinac kale ee nagu dhowna waa Eritrean 27 qof oo caruur iyo dumar u badan sida waxaanu kala noqonay mar kale 76 annagu awal waxa naga tagay 27 qof haddana 27 Eritrean ayaa nagu soo biiray marka 49 Soomaali ah iyo 27 Eritrean ayaanu nahay askartii jabhada oo gabdhihii damac ka galay waa markii noogu dareed intaanu soo soconay gaajo aragnay haraad aragnay askari xabsi ku siganay hadba baadna la ka qaad laakiin caawa waa imtixaankii ugu horeeyay uguna dhib badnaa oo ah nimankii jabhada qaar kamida oo gabdhahayaga Soomaaliyeed hunguriyeynaya waqtigu waa fiid nimankii biyaha doonay oo ninkii madaxda ahaa ku jiro way maqan yihiin nimankii taariibka dhamaantood waxa lagu kuusay hal meel jabhadii waxay baarteen marka hore qolada Eritreanka rag yar ilaa 8 ayaa ku jiray oo gaalo u badan kadib annaga ay noo yimaadeen qof walba xabad sigaar ay u taagan xitaa dumarka kuwii cabbi jiray ayaa ka qaatay intayada kalena waa diidnay kadib wayna baarteen waxba noogama tagin wixii ay heli kareen oo meelaha hoose aan lagu qarin mooye waxaan soo gaarnay marka jabhada al-cadl wal musaawaad saxaraha nagu qabsadeen sidaan sheegnay nimankii Suudaanta ahaa ee nawaday ayay garaaceen gaar ahaan ninkii tahriibka hogaaminay ee Samaani iyo mid Shucali ah qabiilka madaxweyne Bashir ka tirsan xitaa cimaamadihii Suudaanta duubnayd inta ka diireen ayay dadkayga u soo tuureen iyagoo leh qorraxda ka harsada kadib ninkii jabhada watay ee askar uu ka haystay 2 Soomaali ah waxay dooneen biyo askartii kalena meesha uga tagay gabalkiina waa dhacay annaga iyo qoladii Eritreanka ayaa is-agnaal wareysiga ay nala yeesheen waxaanu ku niri annaga dad Soomaali ah oo qaxoontiya oo masaakiina oo tahriibaysa ayaanu nahay sida darteed waxba nama yeelin balse biyihii iyo cuntadii ayayba nagu caawiyeen annagoo 20 cisho ku dhawaad qatanayn dadkuna aad isaga baaba'san yahay damiciina xadinta badnaa waataan idin soo sheegay inay ahayd markii noogu dhib badnayd fiidkii markii la gaaray ninkii jabhada u madax ahaa iyo colku ka haysana ay weli dhaankii ku maqan yihiin labada reer ee Soomaalida iyo Eritreankuna ay is-ag yeelaan anigu waqtigaas intaan maqrib iyo cisho tukaday ayaan xoogaa seexday wax yar kadib waxa la soo kiciyay inaan la hadlo nin noo yimi mise waaba askari kamid ah jabhadiina haysatay madaxa iyo afkuba waa u duuman yahay
qorina wuu wataa garabka u surano xagga hoose afkiisa u jeedo annagu waa urursannahay dumarkuna dhinac ragguna dhinac gabdhaha sidaan sheegnay waa 8 mid kaliya ayaa ninkeeda la socda inta kale kaligood ay tahriibayaan hablo dhalinyaro ah ayayna u badan yihiin waxaana hal qof ka ahayn ninkii jabhadka ahaa markaan la hadlay wuxuu yiri waxaan rabnaa dumarka inaan waraysi ka qaadno mid waxaan ku yiri dumarka kaligood sidee u waraysanaysaan miyuu arrinkaas idin bannaan yahay wuxuu yiri amarku waa sidaas waxaan ku yiri qof walba iyadoo maxramkeedu la socdo halkan hortayada ah waxaad rabtaan ku weydiiya isla mar ahaantaasna waxaan af Soomaali ku dhaxgaliyay anigoo dadka la hadlaya nimankan dumarka ayaa damac ka galay xaaladuna waa khatar gabar walba qof ayaynu dhahaynaa waa ninkeedii rag iyo dumar sida hal la ogaado gabar walba nin agtiisa ha fariisato ma taabanayso laakiin agtiisa uu ha fariisto sidaas ayaa ugu dhib yar inaan ku badbaadno dabadeedna waxaan iri anigoo Carabi iyo af Soomaali isdhex gelinaya si jilin iyo dhaqdhaqaaq yar la socdo oo aan askariga igu dareemi karin heblaayo intaan gabdhaha xaqooda eegay ninkaaga agtiisa tag جنب زوجك اجلسي هبل خذ زوجتك حاسكاga agtaada fariisi ninkii askariga ahaana waxaan ku leeyahay anoo marna xaqiisa eegaya marna xagga dadka eeg haweenay kasta ninkeedii waa kan waxaan filayaa inay ahayd fikrad Ilaahay waafajiyay si fiicanna aan u jilay Ilaahayna nagu guuleeyay waxa xoogaha katay gabar gabdhaha kamid ah oo tiri sidee u dhinac fariisan in aan maxram ii ahayn saxaraha Liibiya ayay jeexaysaa maxram la'aan Yurubna way u jeedaa sidaasna waa ay leedahay waxaan ku yiri haddaad sidaa yeelin waxaad khatar ugu jirtaa ninkan inaan ka celin kari weyno dhaqsi u istaag dadkiina waa ku qayliyeen markaas ay yeeshay gabadhaas maalmo kadib saxaraha ayaan ku aasi doonaa Allah u naxariistee gaajo iyo haraad markii ay la leedatay oo 12 qof naga dhinteen saxaraha dhexdeeda gabadhii ninkeedu dhaanka ku maqnaa sida ayaan ugu sheegnay si hadalku dhab u noqdo waxaan in gabadhaas soo hartay waa mid ninkeedu dhaanka ku maqan yahay iyadana gabdhaha kale ag fariiso ayaan niri wuxuu yiri isagoo qoriga xaggayga u soo jeedinaya riwaayad ayaa dhigaysan haddaadan ka leexan xabad ayaan kugu dhufanayaa waxaan ku yiri anigu sidii wax u jireen ayaan kuu sheegay haweenkan waa dumar la qabo mid walba ninkeeda ayaa la socda dadkana faraha taagtaaga ayaan ku yiri xoogaha hadduu handadaad iyo cagajuguleen igu sameeyay qorigana xabadka iga saaray dadkuna dhiiri gelinayaan oo leeyihiin habiqin ha ka cabsan kulligan waan ku wada dhimanaynaa dumarkuna oo hin iyo walwal isku darayaan ayaa Ilaahay naga kaxeeyay oo dib u guurtay alxamdulillah neefweyn ayaa naga soo baxday Ilaahayna waan uga mahadiyay bahalka naga kaxeeyay laakiin nasiib darro wax yar kadib waxaan maqlaynaa dumarka Eritreanka oo cadowgu jiitay qayladoodii oo baxaysa iyagoo la farxumeynayo aad baa u mahadsantahay saaxiibada qaaliga qaybta afraad halkaas inoo joogta si qaybaha dambe aad ula socotay kanaalka hore u gal subscribe na saar gambaleelkana furo si qayb kasta aan soo gelin aad ula socotay